محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد يا رسول الله صلى أدير ملاك مصدبتي يا كو صدب هذه أمس والله والله أحبس إيش يا كيكر ثاني ما شاء الله waxaan booqasho dalxiis iyo siyaaraba ugu tagay degmada Warshiq oo uu ku aasan yahay aabo Sheekh Cabdi Cali waxaana booqashadaasi fursad ugu helay in aan soo gudbiyo warbixintan taariikhi ah oo ku soo qaadan doono mid kamid ah raayadkii gumeystigii Talyaaniga oo weli degmada qadiimiga ah xusuus ahaan u yaala halisna ugu jira in uu raadkaasi taariikhiga ah baaba'o maadaama aysan jirin maamul iyo cid iska xil saartay keedinta taariikhdaasi balse intaan u gudagelin waxaan marka hore iftiiminayaa taariikhda faca fog ee Warshiq waa degmo qadiimi ah oo leh xurmo gaar ah waxayna ka tirsan tahay gobolka Shabeellaha Dhexe fogaan ahaan 65 kilomitir ayay magaalada Muqdisho dhinaca xeebta waqooyi kaga beegan tahay waa magaalo leh madxaf diimeedka ugu weyn Soomaaliya magaalada Warshiq waxaa aas-aaskeeda lahaa Sheekh Daawud Cali Idris qarnigii 17aad waxaana uu ka bilaabay dhismaheeda masjid ka sameysnaa dhagax iyo dugsi lagu baran jiray Qur'aanka Kariimka Allah u naxariistee Sheekh Daawud waxa uu ahaa wadaad aad u necbaa gumeysiga sida ay dadka Warshiq u neceb yihiin dulmiga wuxuuna dadaalkii uu Warshiq ka bilaabay ay ahayd faafinta diinta Islaamka iyo iska difaaca gumeysigii Talyaaniga ee sahminta u yimid Soomaaliya Warshiq waxay xiriir beec mushtar la lahaan jirtay adduunka intiisa kale gaar ahaan bariga dhexe iyo Afrika waxay lahayd dekad wanaagsan oo doomaha beec mushtarka ku yimaada ay ku soo xiran jireen waxayna keeni jireen badeeco u badan bunka dharka timirta milixda ama cusbada waxay qaadi jireen xoolaha nool harkaha subaga nuuriyada cad luubaanta ama fooxa iyo alaabo kale Warshiq waxay ka mid noqotay xeebihii ugu horeeyay ee gumeystigii Talyaaniga dagaalka ku soo galay sida ku xusan taariikhda qoran 14kii bishii afraad sanadkii 1890 oo ku beegan xilligii Talyaaniga sahminta ku yimid Soomaaliya waxaa xilligaas koox ka tirsan ciidamadii Talyaaniga ku soo xirteen marsada Warshiq waxaana hogaaminayay ciidankaasi sarkaal la oran jiray Dhamme Amaaniya isagoo xeebta u soo diray sahan ka kooban 7 badmaax iyo turjumaan ku hadlay afka Carabiga reer Warshiq iyo culimadoodii waxay ka dhiidhiyeen soo gelida ciidankaasi halkaasna waxaa ka qarxay dagaal xooggan oo lagu dilay gumeystigii ugu horeeyay ee geyiga Soomaaliya nafta looga qaado sarkaalkaasi oo hogaaminayay ciidamadii loo soo diray sahminta xeebta degmada Warshiq caro ay gumeystigii ka qaadeen dilkii sarkaalkooda waxay dib ugu laabteen badweynta halkaasina ay ka bilaabeen duqeyn xooggan oo degmada Warshiq laga soo duqeeyay badweynta dhexdeeda iyadoo ilaa iminka degmada xusuus ahaan u yaalaan gumacyadii gantaalihii lagu soo riday waxayse degmada lahayd ciidamo la oran jiray 40 lowga oo ilaalo ka hayay xeebaha degmada ay leedahay hase ahaatee markii si rasmi ah ula wareegeen gumeysigii Talyaaniga guud ahaan dalka waxay si nabad ah u soo galeen degmada Warshiq oo ay xadgudubyo aan halkan lagu soo koobi karin u geysteen waxgaradkii iyo ciidamadii dagaalka kala hortagay gumaca gantaalka lagu soo tuuray degmada Warshiq xilligaasi nasiib wanaag aanu qarxin dhirar ahaan waxaan ku qiyaasay 75 ilaa 80 sentimitir hadda wuxuu u muuqdaa mid burburi raba maadaama in ka badan qarni jamalada korkooda ku aasnaa oo aysan jirin cid mas'uuliyad iska saartay in ay daryeesho taariikhdaasi faca weyn xitaa haddii ahaan lahayd dowladdii kacaanka ah oo laga yaab in aysan ka warqabin ama aan jeclaysan in taariikhdaasi ahaato mid qoranto si walba ha ku dhacdee
madfacana arkaysaan waxaa soo tuuro ciidamadii talyaaniga waxayna Warshiiq caan ku tahay oo caddeynaysaa in degmada Warshiiq kaalin muhiim ah kaga jirtay gumaysiga tirarkii talyaaniga dalka ku soo duulay Warshiiq waxay kaloo caan ku tahay oo lagu xasuustaa inay halkan ay tahay meeshii ugu horeysay nin caddaan oo u dhashay talyaaniga lagu dilay waxayna muujinaysaa taasi xaqiiqada iyo taariikhda ay degmadani leedahay laakiin buugaagtii iyo taariikhtii laga qoray Soomaaliya iyo gumaystihii cid ku soo hadal qaatay ma jirto marka waxaan u aragnaa taas inay tahay yani taariikh la tuugayo oo dadka deegaanka iyo degmadaba lagu dulmiyay maamulka degmada iyo gaar ahaan culimada xushmada leh ee Warshiiq waxaan isku dayay in aan fahamsiyo muhiimadda ay degmada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uu u leeyahay in raadkaasi taariikhiga ah la keediyo lana daryeelo gumacaasi si uu xusuus ugu noqdo jiilasha aan waxba ka aqoon degmada iyo cid kasta oo booqasho ku tagta si loo tuso dal walba oo ku yaala adduunka wuxuu keediyaa taariikhdiisa hadday ahaan lahaayeen madaafiicdii lagu soo weeraray iyo raad walba oo gumaystaha ugu tagay dalkooda inkastoo dowladdii dhexe ee dalka soo maraba ay qariyeen taariikhda degmooyin gaar ah gabagabadii Warshiiq waxay caan ku tahay faafinta diinta islaamka iyo mashaa'ikhda oo la xurmeeyo waa magaalo culimo laguna tixgeliyo madrasadaha ay aasaaseen culamo Soomaaliyeed oo aan ka tilmaami karo Sheekh Daawud Cali Idriis Sheekh Abikan Maxdaar Sheekh Cabdi aw Cumar Sheekh Cabdi Cali iyo Sheekh Muhammad dadka Warshiiq iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxay dugsadaan kutubadii iyo wixii qeyr ah ee uu ugu tagay Sheekh Cabdi Cali aw Cumar oo sanad walba bishan oo kale siyaar doonta halka uu ku aasan yahay ee degmada Warshiiq waxaana faaladeeda ku soo gabagabeynaya tix yar oo aabe Sheekh Cabdi Cumar xirtiisa iyo dadka toosan ay ku salaami jireen oo ah imaamkii udgoona aabaheena Sheekh Cabdi Cumarow ijaaban rabnaa khaliifaad aheedow qalqigan dhammaan aday ku qushuuceen qaatumaan rabnaa bisinkii ilaahi ba'i qur'aan bagaadii ka buuxaan barakaan rabnaa eebow waxaa qalinka u qaatay faaladan oo qoray Cali Muxudiin Cali waxaana soo jeedinayaa anigoo ah Xuseen Axmed Maxamuud محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد يا رسول